muuqaalkan waxaynu kaga hadli doonaa qaabka loo xaliyo jajabyada soo noqnoqda ama repeating decimaliska. waayo tusaalaha u horeeya waxa weeyaan 0.75 soo noqnoqonaya. markii qaabkee baynu u xalinaa oo aynu ugu celinaa qaab A over B ah ama qaab lakaba oo isoos yaala. xisaabtani si guud sidee baynu ugu celinaa halkee ay ka timid. waayo haddaba qaacida jirta la marayo. D waxay noola mid tahay D times 10 to the power of K plus B minus 10 to the power of K oo loo qaybiyey isla intaasun 10 to the power of K plus B minus 10 to the power of K. waayahay haddaba xuruuftani waxay u taagan yihiin mid kaste D-da aynu ku horeyno. D-da waxay noogu taagan tahay decimaalka ama tirada xaggan inoogu qoran. waxay u taagan tahay tiradan. decimal oo ah 0.375 soo laalaabanaya. halkay keedu u taagan tahay non repeating, tirada aan soo laalaabanayn, non repeating. way B-duna ay u taagan tahay repeating. haddaba non repeatingku waa 3 oo tiradaas ma soo noqnoqoto 3 weeyaan. halka may hal tiro weeyaan. ma qorino tirada meesha ku qoran, waxaynu qoraynaa inta tiro soo noqnoqota ama aan soo noqnoqoni intay yihiin. tusaale non repeatingku hal weeyaan. halka repeating ama tirada soo laalaabatan ay tahay 2. haddaba aynu u soo gudubna qaacidadan inagoo ku bedelina xaraf kasta qiimihiisa. 0.375 soo laalaabanaya waxay noola mid tahay D oo ah D-da xarafkaas oo ah isla intan 0.375 soo laalaabanaya. marka halkan waa inaynu masaxno. waxaynu ku qasbanahay intan inaynu masaxno. oo lagu dhuftay 10 to the power of K. keedu waxay noogu taagneyd baynu nidhi non repeating. keedu waa tirada aan soo laalaabanayn. waa hal marka tirada aan soo laalaaban. tirada soo laalaabanaysa oo ay B-du u taagan tahayna waa 2 good minus 10 to the power of K oo non repeating ah hal weeyaan marka tirada aan soo laalaaban loo qaybiyey isla intaasun 10 to the power of 1 plus 2 minus 10 to the power of 1. dabeedna qowskaynu ku xidhaynaa. intan haddaba aynu kasoo shaqeyno intanaan ku dhufanay 0.375. 0.375 waxay noola mid tahay haddaba inta gudaha intan ku dhufanin horta intanaynu u imanaynaa. 0.375 horta aynu qorno lagu dhuftay intani waxay noqonaysaa 10 to the power of 3 minus 10 to the power of 1. intan hoosena la mid weeyaan 10 to the power of 3 minus
10 to the power of 1. waayahay haddaba intan micnihii qiimayaasha 10 to the power of 3 qiimaheedu waa 1000. micnaheedu waxa weeyaan 10 lagu dhuftay 10 marka 3 tobnaad taas ku dhufato 1000 weeyaan. waayahay waxay noqonaysaa markaa 0.375 waxay noola mid tahay 0.375 soo laalaabanaya lagu dhuftay 1000 laga jaray 10 loo qaybiyey. haddii 10 aad hal jeer isku dhufarto micnihii 10 lagu jibaaray hal micnaheedu waa 10 waayo halku waa asal madoorshaha isku dhufashada. marka 10 lagu dhuftay hal just waa 10. halkana waa 1000 halkaas 6 baan madooban malayna waa 1000 laga jaray 10. okay haddaba imika aynu ku dhufano 0.375 ayaa waxaynu ku dhufanaynaa 0.375 ayaa waxay noola mid tahay 0.375 lagu dhuftay 1000. positionkaasi nooma qaadaya malayna 0.375 ayaa waxay noola mid tahay 0.375 lagu dhuftay 1000 oo laga jaray 0.375 lagu dhuftay 10. intanna waxaa loo qaybinayaa labadan oo la kala jaray. labada haddaan kala jarno maxay waa 990. waayo 0.375 waxay noola mid tahay 0.375 haddaynu ku dhufano 1000 waxa weeyaan 0 aan idhaahdee 3 waa 375.575 soo laalaaban. waayo 575kaasi wax kastood ku dhufato kama harayo mar kastaba wuxuu noqonayaa tirada ugu dambeysa ee qormaysa laga jaray. halkan haddii 10 ku dhufato waxa weeyaan 3.75 soo laalaabanaya. intana waxaynu u qaybinaynaa 990. waayo haddaba meel aynu banaysano intaynaan sii wadan intanaynu iska masaxaynaa. okay 0.375 waxay noola mid tahay haddaba labadan inood haddaynu kala jarno waa 375.375. horta isku dhufashada aynu ku horeyno waxaa laga yaabaa inaanad fahmin. isku dhufashada aynu dib ugu noqono waxa weeyaan 0.375 soo laalaabanaya oo lagu dhuftay 1000 lagu dhuftay 1000 hoosaynu ka xariiqinaa. marka calaamadii ku dhufadana xagganaynu ku qoraynaa waa eber lagu dhuftay 5 eber weeyaan. markale eber lagu dhuftay 5 waa eber. markale eber lagu dhuftay 7 ayaa taas eber lagu dhuftay 3 waa eber. eber lagu dhuftay eber waa eber. waayo 3 meelood maxay noqonaynaa minintaasa. haddana eber ayaynu 5 ku dhufanaynaa waa eber. eber ayaynu 7 ku dhufanaynaa waa eber. eber baynu 3 ku dhufanaynaa waa eber. eber baynu eber ku dhufanaynaa waa eber. mar kale eber ayaynu ku dhufanaynaa 5 waa eber. eber ayaynu ku dhufanaynaa 7 waa eber. eber ayaynu ku dhufanaynaa waxaynu soconaa ka saddexaad eber ayaynu ku dhufanaynaa
saddex waa eber ayaynu ku dhufananaa eber weeyaan. halkaynu u imanaa marka hal ayaynu ku dhufanaa, shan waa shan, hal ayaynu ku dhufanaa, toddoba waa toddoba, hal ayaynu ku dhufanaa, saddex waa saddex, hal ayaynu ku dhufanaa, eber waa eber. waayahay hoostaynu ku xariiqaynaa, waynu la soo deginaa kan eber, kan waynu la soo deginaa eber, saddexdana waa eber, afartana waa shan, saddexdani waa toddoba, intana waa saddex. eberkaa waan iskaga tegi karnaa maadaama marka horeba isagu dhibicda xaggaa ka xigay. haddaba waxaynu tirinaa imise god ayaa dhibicda ka xigay midigta. 1 2 3 god weeyaan. saddexda eber marka waan iska tuuranaa waa 370. laakiin 570 kan kale wuu soo raacaya, waayo calaamadaasa inoo sheegaysa inay 570 u dambeynayaan. markastaba 570 kaas u dambeynaya. marka qiimaha aynu qornay saasuu sax ku yahay. haddii aad saddexda ku dhufato 375 aan dhahday eber dhibic 375, haddaad 10 ku dhufatana waxay noqonaysaa 3.570. aynu kala jirnaa haddaba waa 375.570 laga jaray 3.570. 5 ka jir waa eber, 7 ka jir waa eber, markasta 6 baa la moodaa laakiin waa eber, halkaasi eber, halkana waa eber, 7 laga jiro, halkanina waa 2, bartani waa 7, halkana waa 3. marka intan waan iska tuuraynaa, waxa weeyaan 372 loo qaybiyey 990. haddii aad intaa isku qaybiso intanay kusoo bixi. labada inood haddaad isku qaybiso waxay kusoo bixi exactly intan ay inoola mid tahay. waayahay xabad kale aynu isku dayno ama intaynaa ka shaqeyn adugu waa isku day. waxa weeyaan 0.453 soo laalaabanaya. bal hadda ma isku dayi kartaa intaad muuqaalka joojiso aadu ma ka shaqeyn karaysaa xabadaas. mar kale haddii ay noola mid tahay d times 10 to the power of k plus b minus 10 to the power of k ayaa waxaynu u qaybinaynaa qowskani daba ku xidhan yahay. waxaynu u qaybinaynaa isla intaasun k plus b weyn bartaasi k plus b minus 10 to the power of k. labada inood way isku qaybsan yihiin sida caadiga way soo sahlaan, laakiin aniga si saxa u qorin. waayahay mar kale haddaba inagoo qaabkeenu tii hore uga shaqeynayna tanna ayaa waxaynu raacaynaa qaacidada. d waxay noola mid tahay 0.453 soo laalaabanaya. mar kale keedu waxay noola mid tahay godka aan soo laalaaban oo ah 1. mar kale bdu waxay noola mid tahay godka soo laalaabanaya oo ah 2 god. labada god baa soo noqnoqda. calaamadda yar waxaa la bar notation afka qalaad, laakiin Soomaali waxay muujinaysaa in labada god soo laalaabanayaan. waayo waa 2. waxaynu sameynaynaa haddaba d ayaynu soo qaadanaynaa oo ah 0.53 soo laalaabanaya. waxay noola mid tahay 0.53 soo laalaabanaya times 10 to the power of 1 plus 2 minus 10 to the power of 1 loo qaybiyey 10 to the power of 1 plus 2 laga jaray 10 to the power of 1 lagu xidhay qowska. dabeedna 0.453 soo laalaabanaya. waxay noola mid tahay 0.453 soo laalaabanaya. intan haddaba aynu ka shaqeyno waxa weeyaan 1000 halkaasi
sida caadi markaad labada isu geyso 10 ku jibaarta sidii tii hore waxay soo baxaysaa 1000 halkana 10keedun bay ahaanaysaa inta hoosena lamid bay noqonaysaa waa 1000 laga jaray 10 waayahay 0.453 soo laalaabanaya waxay noola mid tahay 0.453 soo laalaabanaya lagu dhuftay 1000 ku dhufanaynaa mar kale laakiin waxaad xusuusnaataa intaan kala jarin intaanad kala jarin intaan ka shaqaynin ugu horeyn waxaad ku dhufanaysaa jajabka oo kuma horeyn kartid intan dabeedna kuma dhufan kartid jajabka waxa soo baxaysa jawaab khaldan laakiin marka hore markaad intaa ka shaqayso intan markaad aad soo saarta jibaarkeedu wuxuu ka dhigayay dabeedna waxaad ku dhufanaysaa jajabka meesha inoo yaala waayahay minus 0.453 soo laalaabanaya times 10 intana waxaynu qaybinaynaa markaa ogsanow intan iyadu waa ka gooni bani xariiqan ilaa halkaa ma dhigi kartid dabeedna kuma hoos qori kartid 990 waa qalad intani waa gooni waayahay aan idhaahdo 990 dabeedna waxaynu sameynaynaa intanaynu isku dhufanaynaa haddaba aynu meel banayno horta intanaynu isku masaxaynaa waaye waxay noqonaysaa markaa 453.53 soo laalaabanaya laga jaray 4.53 soo laalaabanaya loo qaybiyey 990 bacdin intaa waxay isla bixi halkaas waxay noo noqonaysaa horta aynu caadi u kala jarnaba waxa weeyaan 453 laga jaray 4 halkan laakiin waxa u dambeeya 53 laga jaray 4.53 53 iyo 53 way isla baxayaan marka deedna intan laba zero ayay noqonaysaa halkana waa 13 waayo halkaas waa 13 baynu marka ka jaraynaa 4 9 weeyaan halkan laba ay nooga soo hadhay halkana 4 halkan 3 ay nooga soo hadhay khalad ayaa saasi labada eber waa sax halkana waa 13 13kii haddaad 4 ka jarto waa 9 bartani waxa weeyaan 4 marka 4 halkana waa 4teedii 449 loo qaybiyey 990 jawaabta saxdii waa intaas waanad hubin kartaa hadday maxay inay khalad tahay in kale